waxa la wixii shalay dhacay waxa la qowracay qarannimadii Soomaaliya waxay garashi iyo garaad kooga ku saleeyeen maanguracan bay ku saleeyeen qarannimadii Soomaaliyana shalay waxa lagu qowracay baarlamaanka dawladda federaalka iyagoo eegaya kota kuroor ay qaataan iyo kuraas wasiira iyo safiiro loogu talagalay sida daraadeed waxa la dalkan iyo dadkan meel xun baa loo jiheeyay qarannimada Soomaaliyeed baa laga kaxeeyay dawladnimada Soomaaliyeed baa loo diiday waxa leeyahay inay Puntland goodo Awdal State goodo Khaatumo State goodo Somaliland goodo waxa soo dhanba waxa ka shaqeeyay dawladda federaalka iyo baarlamaanka waxa leeyahay shacbiga Soomaaliyeed ummadda Puntland waa jecel yahay madaxweyne waxa khaldan Khaatumo waa jecel yahay Somaliland waa jecel yahay Awdal State waa jecel waxa khaldan waa baarlamaanka oo kota kun iyo kuraas awgeed waxa uu sameeyay marka walaalayaal waxa leeyahay dalkan iyo dadkan waxa midnimadooda iyo wanaagooda ku jirta in dastuurka ummadda wada deeqda oo from Saylac to Kismaayo deeqda la sameeyo dalkan iyo dadkan waxa u doonaa qarannimada Soomaaliyeed haddii maanta Soomaali ay hagaagaysi la diiday waxaan aaminsanaynaa weligeed hagaageen xasan sheekh suudka loo soo talay ee la leekaysiinayo meel idin geyn maayo baan leeyahay waxaan taageersanahay shirka dibashiisiinta farmaajo iyo madaxweyne Shariif ku dhawaaqeen mucaaradkii musharaxiintii madaxweynayaashooda waa ka soo horjeesteen Puntland dawladda federaalka waa ka baxday waxay tiraahdo waxaan ahay wadan gaara Somaliland wadan gaara Awdal State dib u noqon doontaa iyo Somaliland teediba la noqon doontaa Khaatumo State iyaduna waxa weeyaan leexad bay gali doontaa marka walaalayaal waxa leeyahay qarannimada Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo tiimka baarlamaanka ku ayaa qowracay shacbiga Soomaaliyeed ma ogoleen waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliya albaab walba ka xidha baarlamaanka iyo senatarada madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxa leeyahay cadaadis dunida ha saarto UK Imaaraadka Carabta midowga Yurub America Afrika intaba cadaadis ha saarta baa leeyahay dalkan iyo dadkan midnimadiisa iyo qarannimadiisa hadii laga shaqeey waayo waxaan filayaa in lagu kala guuri doono Puntlandna waa ku hambalyeynaya go'aanka dhiiran ay qaadatay mar haddii baarlamaankii yiri Puntlandna ha naga tagto Somalilandna ha naga tagto yiri Somalilandna waxaan leeyahay maanta laga bilaabo hambaliyo dawlad gaar ah waatiin waa idinku hambalyeynaya. Wassalaamu calaykum.